si loo hormariyo adeegyada bulshada ee xaafadaha isla markaasna bulshada xaafadu ay u hesho adeegyada aasaasiga ah oo ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale amniga ayay kulankan soo agaasimeen maamulka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada xaafada Bakiin waxaana kulankan lagu casuumay maamulka degmada Cadaado taliska booliiska saldhigga degmada iyo sidoo kale waxgarada xubnaha maamulka iyo waxgaradka ee ka socday xaafada Bakiin waxay ka dalbadeen maamulka degmada Cadaado iyo taliska booliiska degmada in laga hirgeliyo xaafadaasi xarun dhinaca amniga ah oo ciidamada booliisku ay ku yeeshaan saldhig sidoo kalena laga hirgeliyo adeegyada aasaasiga oo ay ka mid yihiin caafimaadka iyo waxbarashada iyo sidoo kale jidad muhiim u ah isku socodka bulshada ee xaafadaasi. salaanka bacdi dadkan halkan iskugu yimid waa xaafada Bakiin degmada Cadaado waxay iskugu yimaadeen cabasho ay wadaan gudoomiyaha degmada u wadaan taliyaha ciidanka booliiska degmada Cadaado u wadaan cabashadaas waxay noogu qorantay waxa la war magaalo warqadu ku qoran yahay warqad ayay noogu qoran tahay anuu shirkan furayay protocol ayaa noo qaabilsan iyo akhrinta iyo nidaamkaas oo dhan annagoo ah maamulka xaafada Bakiin iyo qaybaha bulshada kala duwan ee xaafada Bakiin sida odayaasha culamaa u diinka dhalinyarada hooyooyinka waxaan si wada jir ah uga cabanaynaa ama ugu sheegaynaa maamulka sharafta leh arrimahan hoos ku xusan. lambar 1 amni darro ka jirta xaafada Bakiin sida in aysan lahayn saldhig booliis iyo cid xalisa arrimaha amni darrada xaafadaas ka dhacda mararka inta badan. lambar 2 caafimaad darro xaafadaas ka jirta ma lahan MCH iyo goobaha gurmadka degdega ah ee mar kastaba taaganta ah. lambar 3 waxbarasho la'aan iyo waxbarasho darro ka jirta xaafadaas ma lahan meel wax lagu baro agoomaha iyo dadka danyarta ah. lambar 4 suuq la'aan waxaan u baahanahay in loo sameeyo ama loo sameeyo xaafadaas suuq dhaqaale si loo abuuro dhaqaalo dadka danyarta ah. lambar 5 waxaan ka cabanaynaa wadooyinka xaafadaas iyagoo wadooyinku baxsan aysan helin adeegii jayga. lambar 6 inaan helno adeega soolarka iyo iftiinka oo xaafadaas muhiim u ah. waxaan intaas ku daraynaa annaga warkan inuu wuxuu ku egyahay warqadaas ku yaala waxaan codsanaynaa degmada oo madaxda degmada ka codsanaynaa oo hadii la yiraahdo ka codsanaynaa madaxda saldhigga ka codsanaynaa in aan helno waraaqda waxa ku qoran oo cabashada ah waan u baahanahay oo baahideeda aad moodid inaan uga duwanahay mararka qaar kood xaafadaha kaleeto xaafada magac gaar ah u bixin maayo laakiin xaafada Bakiin way u baahan tahay amni kormeera oo markasta way u baahan tahay xarumaha baahida oo la soo gudbiyay inay wax ka hesho waa u baahan tahay xaafada Bakiin aad ay u weyn tahay maadaama anagu gogashan xafladan maanta aan u dhignay si khaas oo xaafada ah baahida degmada ka jirto dhan wayna wada qulsaysaa oo waxaan nahay dadkii Ilaahay koonkan uu makaniyay laakiin si gaar ah xafladda waxaan uga hadlaynaa xaafadda waxaan rabnaa marka baahiyaha sida loo soo gudbiyay si taxadar leh qiimeyn leh mudnaan leh in waxna lagala qabto. Bakiin inay weyn tahay oo magaaladan hadii waa la xaqirayaa aysan u dhigmin hal xaafada maamulkuna waa og yahay inta wax garataana waa taqaanaa laakiin waxaan rabnaa socodsi ku camiran yahay oo codsi ku jiro annaga maantay Bakiin wixii nala riixa da'da dambana way soo noqon doonaan dad karaamalahan ugu jira dad culumahan u badannahay dad wax gartaan ugu jira Bakiin waxa ka maqan oo halka aan ku qorannay waa sax waliba wadooyinku waa wada horay ka wada bilaabay yihiin waxay u baahan tahay guryahan haraati lagu dhufto kay hadda guriga anigu ma leeyahay qaab leh hadii kay ku yimaado waa saxiixay barta kale lagu dhufto waxaan nahay adeegayaal u adeega bulshada baahideeda in aan soo gudbinana waa mas'uuliyadna saaran
waxaan laga hadlay waa arrimo saxa waa arrimo naga maqan waa arrin dadkeena ka maqan waa arrin deegaankeena ka maqan haddii ay tahay arrin abni haddii ay tahay arrin caafimaad haddii ay tahay wado haddii ay tahay dhaqaale siin yacni suuq maaragtay dandanyartu ay ku maaragtay gargaarsadaan ool waxaasoo dhani wax naga maqan weeyaan oo bulshadeena ka maqan hadda kuween dhalnay anagu hadda kuwaan dhalna xitaa na tuuriyeeyanay ma ogin hadda hooyooyin haddaan waxaan codsaynaa anagu oo bakiin aan ka soo jeednaba xaafadda bakiin aan ka soo jeedno habeenkii in nala ka saaciido tuuriyada ciyaalka wareegaya waxa socda ciidan in ciyaalada iyo waxaas nala ka fariisiyo waaba rabnaaba gabdhihii waa adeegsan weynay ilmihii yararka waa u dirsan weynay wax adigu sha'nigoodaa badanba ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdulaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole oo madasha ka hadlay waxa uu sheegay in maamulka degmadu uu diyaar u yahay hirgelinta iyo fulinta adeegyada baahida ay u qabto xaafadda Bakiin oo ay qayb ka yihiin xarun saldhig booliis jidadka iyo sidoo kale adeegyada caafimaadka maantana meel fiican ay maraysaa horta maanta dad leedihiin horumarkii aan rabnaa barwaaqadii aan rabnaa qayrkii aan rabnaa jidadkii aan rabnaa intaad ka soo gudubteen wax kasta aad maanta halkaas joogtay horta meel fiican aad joogtay haddeerna anagu waxaan ognahay xaafadda ugu horeyda waa markii ama wax la soo dhaweynayo ama shaqo kale la isku diro xaafadda ugu horeyda taas annaga qirayna waa xaafadda ugu horeyda waa laakiin weli wax badanaa idiin dhiman waxaa ka mid a hadda waxaa ka hadasheen adinka saldhig boolis in la helo xaafadda waxaa laga rabaa muddo badan annagaa saldhig ka raadinayna saldhigga baadiye lagama rabo waxaa laga rabaa meel xaafadda dhexdeeda ah oo dadku degan yahay oo laga shaqeeyo dhulaa la rabaa horta saldhiggii laga dhiso dhulkii adinkaa waa hore kala googoosteen adinkaa xaraysateen muddo badan waxaan ka raadin jiraan dhulkii saldhigga laga dhisaayo waa ogyahay hay-ad guddoomiyaha waa ogyahay marka haddii saldhiggana hay-adina idiin dhisamaydo cid kale dhisamaydo canshuurta la inka qaadaya waxaa la kugu dhisayo jeebkiina lacagta ku jirta bakiin 3 kun oo guri waa ku taala guriga hadda $10 ka qaadin waa $30,000 meesha idinku wax weyn aad raadinaysiin hal maalin aad ku dhisan kartiin saldhig yar oo inku filan oo laan saldhigoo 10 askari idiin joogto ilmahaas dadka dhagaxyeehaya inka celida marka horta waxaa la rabaa marka kuwa dhulka inaa heshiin marka labaadna shaqadii bilowdiin waa la intaa kuleeyaha markaas horta saldhigii saas in lagu dhisaa la rabaa Saadaq Laki Galmudug TV Cadaado.